kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Hormaal Media alaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu waaweyn intaad muuqaalka daawanaysaan waxaa halkan idinkugu soo gudbin doona Imaaraadka oo wajahaya weeraro culus oo kaga imaanaya Iiraan oo laba jibartay duqeymaheeda iyo sidoo kale gantaalada ay sida roobka ugu durusheynayso magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil sidoo kale xaaladda bariga dhexe oo faraha ka sii baxday macluumaadkaasi wixii kale nagu soo kordho intaad muuqaalka daawanayso ayaan ku soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahay muuqaalkeena share garay laagino saar si oo gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabno dalalka Imaaraadka Carabta ayaa wajahaya xilligan weeraro culus oo isugu jira gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo kaga imaanaya Iiraan wasiirka difaaca ee Imaaraadka Carabta ayaa bartiisa X waxa uu ku daawacay qoraal uu ku sheegay in dadka oo dhan laga maqlayo dhawaaqa nidaamka digniinta iyo sidoo kale gantaalada ka imaanaya Iiraan ayaa sii wada weerarada ay ka hayso gudaha dalalka Khaliijka Carabta iyadoona sheegtay inay beegsanayso meelaha uu cadawga joogo oo ay ula jeedo Mareykanka dhinaca kale subaxnimadii hore saakay qaraxyo ayaa laga maqlay magaalada Abu Duwa ee isku dalka Imaaraadka Carabta iyadoona uu shaqeynayay nidaamka difaaca ee dalkaasi dadka ayaana digniin loo diray iyadoona looga digayay inay ka fogaadaan goobaha loo maleynayo in Iiraan ay bartilmaameysan doonto raadeelada Imaaraadka Carabta oo si joogto ah u shaqeeya ayaa haddana ku guuleysaneen inay hawada ay ka celiyaan gantaalada Iiraan iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo fulinaya duqeymaha bartilmaameedka iyadoo tan iyo markii uu dagaalka bariga dhexe uu bilowday ay Iiraan si isdaba joog ah ay duqeymo bartilmaameed ugu fulinaysay gudaha wadamada Khaliijka Carabta iyadoona halkaasi ay ku yaalaan saldhigyo waaweyn oo Mareykanku uu ku lahaa halkaasi qaarkood ay Iiraan u suurta gashay inay dhulka ay mariso horey garoonka diyaaradaha ee Abu Duwa ayaa gantaal waxa la dhacday Iiraan kaas oo sababay burbur aad u baaxad weyn Iiraan ayaa gantaalo iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weerartay Imaaraadka Carabta iyadoona sidoo kale maraakiibta saliidda wada oo laga leeyahay dalka Kuwait uu dab qabsiyay kadib markii Iiraan ay weerar ay ku qaaday dhinaca kalena dalal ku yaala Yurub ayaa diiday in hawadooda ay isticmaalaan diyaaradaha uu leeyahay Mareykanka dalal ku yaala Yurub oo ay ka mid yihiin Spain iyo Itaaliya ayaa qaaday talaabo ay si weyn ugu muujinayso kala aragti duwanaanshaha ka dhex jirta xulafada reer galbeedka kadib markii ay diideen in diyaaradaha Mareykanka ay ka qayb qaadanayaan dagaalka Iiraan ay isticmaalaan hawadooda ama garoomadooda go'aankan ayaa wuxuu si buuxda taageero ugu dhigan yahay in howlgalka military ee Mareykanka uu wajahayo caqabado culus oo dhinaca sahayda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadooda Ra'iisul Wasaaraha dalka Spain ayaa si cad u sheegay in dalkiisa uusan taageersaneyn dagaalka uu ku tilmaamay mid aan sharci ahayn taas oo keentay in la xiro hawada iyo sidoo kale saldhigyada muhiimka ee Mareykanku isticmaali jireen arintan ayaa muujinaysa in xitaa dalalka uu ku jiro isbahaysiga NATO ay isku mowqif ka ahayn dagaalka Iiraan gaar ahaan marka ay timaado sharciyada iyo sidoo kale cawaaqibta dagaalka waxaa la og yahay in dagaalka ka soconaya bariga dhexe sababtiisa ay lahaayeen Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka iyagoona markii hore bilaabay daandaansiga Iiraan wadamo qaar oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa si adag ugu soo horjeeda si socoshada ee dagaalkaasi iyagoona markii hore dhinaca kalena dalal ku yaala Yurub ayaa diiday in hawadooda ay isticmaalaan diyaaradaha uu leeyahay Mareykanka dalal ku yaala Yurub oo ay ka mid yihiin Spain iyo Itaaliya ayaa qaaday talaabo ay si weyn ugu muujinayso kala aragti duwanaanshaha ka dhex jirta xulafada reer galbeedka kadib markii ay diideen in diyaaradaha Mareykanka ay ka qayb qaadanayaan dagaalka Iiraan ay isticmaalaan hawadooda ama garoomadooda go'aankan ayaa wuxuu si buuxda taageero ugu dhigan yahay in howlgalka military ee Mareykanka uu wajahayo caqabado culus oo dhinaca sahayda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadooda
ra-iisul wasaaraha dalka Spain ayaa si cad ah u sheegay in dalkiisa uusan taageersaneyn dagaalka uu ku tilmaamay mid aan sharci ahayn, taasi oo keentay in la xiro hawada iyo sidoo kale saldhigyada muhiimka ee Mareykanku isticmaali jireen. Arrintan ayaa muujinaysa in xitaa dalalka uu ku jiro isbahaysiga NATO ay isku mowqif ka ahayn dagaalka Iran, gaar ahaan marka ay timaado sharciyada iyo sidoo kale cawaaqibta dagaalka. Waxaa la og yahay in dagaalka ka soconaya bariga dhexe sababtiisa ay lahaayeen Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka, iyagoona markii hore bilaabay daandaansiga Iran. Wadamo qaar oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa si adag uga soo horjeeda sii socoshada ee dagaalkaasi, iyagoona markii horeba ka digaya weerarka ay Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka qorsheynayeen inay ka fuliyaan gudaha dalka Iran. dhinaca kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si xoogan u riixaya qorshe uu ku doonayo in dalalka Carabta ay bixiyaan qarashaadka dagaalka ka socday bariga dhexe. Trump waxa uu aaminsan yahay in maadaama dagaalku si toos ah u saameynayo amniga bariga dhexe ay tahay in dalalka gobolka ay qaataan qayb ka mid ah culeyska dhaqaalaha. Talaabadan ayaa dhalisay dood weyn oo caalami ah. dalalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu Trump uu xilligan uu doonayaa in ay ka qayb qaataan qarashaadkii ugu baxay intii uu bilowday dagaalka bariga dhexe, iyadoo la sheegay in Mareykanka oo qarash aad u tiro badan halkaasi uu kaga baxay, iyadoona sidoo kale laga burburiyay diyaarado nooca dagaal kuwii ugu dambeeyay, kuwaasi oo qarash aad u fara badan uu geliyay Mareykanka sameeyntooda, iyadoona sidaas oo kale ay ku waayeen hub noocyadoodii kala duwan lahaa. Talaabadan ayaa dhalisay dood weyn oo caalami ah, iyadoona dhinaca ay ka muuqato Yurub oo ka gaabsanaysa dagaalka, halka Mareykanku uu doonayo inuu sii wado howlgalka isla markaana uu taageero dhaqaale uu ka helo xulufadiisa. Xaaladdan waxay sii fogeynaysaa kala qaybsanaanta siyaasadeed ee u dhaxaysa reer galbeedka, isla markaana waxay muujinaysaa in dagaalka Iran uu noqonayo mid leh saameyn ballaaran oo dhaqaale iyo sidoo kale mid amni. markaan haddii aan eegno dhanka iyo Abu Dhabi, markab weyn oo ah nooca shidaalka qaada ayaa Iran waxay la bartilmaameysatay gantaal culus, iyadoona gantaalkaasi markii uu ku dhacay kadib uu dab ka dhashay, waxaana la sheegay in markabku uu ahaa midka ugu weyn isla markaana ugu saameynta badan ee wadankaasi. sida aan ka soo xiganay warbaahinta caalamka, markabka saliidda qaada ee Al-Salmi ahna nooca maraakiibta shidaalka kan ugu weyn, dhirirkiisana lagu sheegay 333 mitir, qaadana 1.2 milyan oo fuusto, lagana leeyahay dalka Kuwait, ayna leedahay Kuwait ayaa ku dulhulcay dekada weyn ee Abu Dhabi kadib markii Iran ay la bartilmaameysatay gantaal culus oo nooca balastikada. Iran waxay si joogto ah u bartilmaameysanaysaa goobaha muhiimka ee bartilmaameedka, ilaha dhaqaalaha iyo sidoo kale goobo kale oo u cayiman, kuwaas oo horeyba u sheegtay inay bartilmaameysan doonto, digniino horena ugu soo saartay in dadka ka agdhow goobahaasi ay soo fogaadaan, gaar ahaan dadka shacabka ay ula jeedo inay yihiin dad barmageeda ah, isla markaana horeyba u sheegtay inaysan ku xadgudbi doonin dalalka dariska la haddii aysan wadankooda duulaan looga soo qaadin Iran. wixii xogay macluumaad ah ee ku soo kordho intaan idin soo gudbinay muuqaaladeena xiga ay idinku soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena, fadlan subscribe inoo dhagan baleelkan fursi ku soo gaara muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkeena share garay, like inoo sar si oo gaar asxaab badan. waad ku mahadsantahay daawashadaada.